waqti badan kama soo wareegin guurkooda. Ninka ayaa waxa uu dareemay in aysan xaaskiisa jacayl badan aysan u haynin. Waxa uu go'aan ku gaaray in uu tijaabiyo xaaskiisa. haddii uu ka tago guriga fariinna u dhaafo una sheego inuusan soo laaban doonin sida ay u dhaqmi doonto inuu ogaado. waxa uu u dhaafay fariin qoraal ah, waxa uuna u saaray miiska. waxa uu ku qoray nolosheeda inuu ku daalay uuna ka tegay soona laaban doonin, bal inuu arko markay akhriso qaabka ay u dhaqmi doonto. waxa uuna ku dhuuntay sariirta hoosteeda si uu kor ugu arko qaabka ay u dhaqmayso markay aragto. ugu dambayntii xaaskii waa ay timid, waraaqdiina waa ay akhrisay. aamusnaan kadib waxa ay bilowday inay ayaduna waraaqda wax ku darto. waxay bilowday in ay dharka iska beddesho ayadoo daaratay muusig welina aad u faraxsan. ciyaar badan iyo dabaaldeg badan kadib ninkii tala ayaa ku dhalatay. arrintu way sii xumaanaysaa. aad buu u amakaagay qaabka ay uga ficil celisay. waxay isla markii bilowday inay taleefanka soo qabsato oo ay lambar wacdo. kadibna waxa ay la hadashay qof. ninkii doqonka ahaana noloshiisii maanta ayay ku eg tahay. ayna jeclaa lahayd mar hore inuu noloshiisa ka faaruqo, ayadoo markaa qofkii la hadlaysa halkaasi shumis uga tuurtay, welibana actionna ay ku dartay. kadibna ay iridda guriga ka baxday ayadoo markaasi iridda xoog u xirtay. kadib asigoo murugaysan ayuu wuxuu ka soo hoosbaxay sariirta. waraaqdii markii uu akhriyey waxaa ku qorneed: waan arkaa cagahaaga sariirta hoosteeda inaad ku jirto doqon yahow. waxaan u baxay inaan rooti inoo soo iibiyo. la sheer garee dadka aad jeceshahay oo keliya.